Assalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada kanaalkayga walaal waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe u saartid maanta waxaan sharaxaynaa film Italian series oo lagu magacaabo Anna. adduunka waxaa la wareegay cudur dila ah oo la isqaadsiiyo oo loo yaqaano Rift fever. waxa uu keenay dhibco gudan jirka oo dhan wuxuuna dilaa qofka dhowr toddobaad gudood. astaamihiisa gaarka ayaa ah inuu dilo dadka waaweyn oo kaliya laakiin carruurta kaga tagay saameyn. si kastaba ha ahaatee fayrasku wuxuu weli tagan yahay jirka carruurta. waxa uu dilaa kadib markii ay qaangaaraan. waxa kale oo uu keenaa dhalmo la'aan taasoo hadda khatar ku ah jiritaanka aadamaha. gabar Sicilian oo isticmaasha magaceeda la yiraahdo Anna waxay la nooshahay walaalkeed Esther oo 5 jir ah. keenta dhexdeeda waxay cunaan cunto dhacday oo ay Anna ka keentay magaalada Marmar. guriga waxa ku hareeraysan fiilooyin googlan oo Esther aan loo ogoleyn inuu ka gudbo. Anna waxa uu sheegtay in dunida dibaddeedu ay leedahay bahalo kuwaas oo isla markaaba ku dili doona haddii uu dibadda u baxo. waxay ku noolaayeen xaaladdan oo kale ilaa 5 sano. bilowga filimka Anna waalidkeedu waxa ay wadaageen mas'uuliyaddeeda laakiin waxay aad u jeceshay aabeed. subax iyadii aabeed waxay ku ciyaarayeen guriga markii hooyada Maria soo gashay. waxay doonaysaa in Anna u kaxaysato miyiga sababtoo ah fayraska si degdeg ah ayuu u faafayaa magaalada. inkasta oo diidan yahay aabuhu wuxuu ogolaaday in Anna inay aado miyiga isagoo ballan qaaday inuu la kulmi doono dhammaadka usbuuca. guriga Maria oo ku yaala bartamaha keenta waxay la nooshahay saaxiibkeed Domino iyo wiilkeeda yar Esther. Anna ma jecla midkoodna sababtoo ah waxay u malaynaysaa in ay yihiin sababtii ay waalidkood u kala tageen. Maria waxay had iyo jeer isku daydaa inay ka dhigto Anna inay la heshiiso Esther laakiin ma jiraan wax shuruud kale. iyadoo qandhada cas ay isku bedeshay cudur halis ah. Maria iyo Domino waa iska ilaaliyaan inay gudaha u galaan magaalada inta ay awoodaan laakiin maadaama ay weli gaarin magaaladooda Anna iyo Esther waxay si joogto ah u aadaan dugsiga. maalin maalmaha ka mid ah macallimiinta dugsiga waxaa laga helay fayraskii taasoo keentay fowdo. waalidiintu waxay yimaadeen inay carruurtooda ku celiyaan guryaha. Maria dhowr jeer baa la wacay laakiin ma qaban telefoonka. dhammaadka kaliya Anna iyo Esther ayaa kaligood ku hadhay iskoolka. macallimad naxariis badan oo magaceeda la yiraahdo Angel ayaa go'aansatay inay caawiso inkastoo aanay garaneyn ciwaanka gurigooda. Anna waxay isku dayaysaa inay ku hagaagto wadooyinka laakiin maadaama aan gurigu ku yaalay meel keenta dhexdeeda ah waa ay weerareen oo waxay ka lumeen wadadii. Angel waxay isku dayday inay wacdo Maria laakiin kama helin signal telefonkii. markay ay kasoo degtay gaadhigii waxay aragtay lamaane dilaya mulkiilaha makhaayadda oo soo dhawaadeen oo weydiileen iyadana. walaaluhu waxay noqdeen kaligood. imika waa inay kaligood guriga u sudaan haan dib ugu noqon guriga. Maria waxay calaamad cas ka heshay garabka Domino. waxay ka codsatay inuu si degdeg ah guriga uga baxo sababtoo ah haddii cudurku qaado waxay noqon doontaa kaligood carruurtu. inta kadib waxay eegtay telefonkeedii oo waxay heshay dhowr fariimo cod ah oo ka yimid Angel. isla markaaba way raadisay carruurtii oo waxay ku soo celisay gurigii. dhammaadka usbuuca Anna aabeed ayaa u yimid suu soo booqdo laakiin aad ayuu xanuun ku saameeyay. Maria way diiday inay ogolaato gudaha iyadoo ka baqaysa inuu nafteeda halis gelin doono. Anna waxay aragtay aabeed oo gaadhi ku soo laabanaya oo ku dhex suuxay dhowr maalmood gudood. qof kasta waxa ku dhacay cudurkii oo ay ku jirto Maria way ogaatay inaysan haysan maalmo badan oo ay ku noolaato laakiin waxa warar badan ku haya carruurteeda. waxay bilowday inay u qorto warqad si ay uga badbaadaan adduunkan. qodobka ugu horreeya ee liiska ayaa sheegay in Anna ay daryeesho nafteeda iyo Esther. inta kadib waa inay isku xidhnaadaan oo si wadajir ah u wajahaan caqabadaha nolosha. waqti xaadirkan Anna way kortay. waxa uu sheegay Esther in dhirtu ay ka badbaadisay dunida fayraska saameeyay oo bixi karo kaliya marka ay dhimato. subaxdii hore Anna waxay aaday magaaladii si ay u soo ururiso wixii ay cuni lahaayeen. waxay gashay qol mugdi ah halkaas oo ay ka heshay toyga carruurta ku ciyaarto. qolkii wuxuu ahaa kaniisad halkaas oo carruur badan oo iyada oo kale ah ay ka raadinayeen cunto iyo saay. Anna waxay ka caawisay gabdhaha qaar inay helaan cunto. waxa kale oo u yimid in la yiraahdo Pietro. wuxuu haystaa 2 dhalo oo casiir ah oo diyaar u yahay inuu ka ganacsado. si lama filaan ah waxaa goobta soo weeraray kooxo argagixis ah oo carruur ah oo lagu magacaabo carruurta buluuga. waxay dhacyo dul geystaan carruurta kale. Anna iyo Pietro waxay la baxseen naftooda si ay uga fogaadaan in la dhaco. waa la eryanayay ilaa ay awoodeen in ay fulaan salaan oo ay tagaan dhinaca kale ee dhismaha. ugu dambeyntii Pietro iyo Anna way ka fogaadeen carruurtii. Pietro waxa uu arkay nin qarka u saaran inuu dhinto qandhada cas ee haysa awgeed. waxa uu isku dayayaa inuu ka caawiyo inuu la kulmo geeri xanuun badan laakiin Anna waxa uu sheegtay inuu iska daayo. kadib waxa ay wada raaceen mootooyinkiisii. Anna waxay ka gaabsatay inay u sheegto halka gurigoodu ku yaalo laakiin Pietro ayaa ka codsaday in ay soo agmarto xeebta haddii uu doonayso inay la kulanto. yar kadib Anna ayaa gurigii timid oo si farxad leh u sugayo Esther. waxay tusisay dhammaan alaabtii ay soo heshay. waxay u sheegtay inay la dagaalantay daayeerkii kaliya waxay doonaysaa in aanu dibadda soo bixin marka ay maqan tahay. muuqaalka xiga waxaan aragnaa walalo mataana oo lagu magacaabo Mario iyo Paolo.
waxay leeyihiin bakhaar weyn oo wax laga iibsado waana ku faraxsan yihiin noloshooda. Subaxda ka mid ah, Paul ayaa soo toosay iyadoo calaamad cad jirkiisa ku taalo, halka Mario uusan lahayn. Way caddahay in Paul uu qabo cudurka, taasoo macnaheedu yahay inuu haysto dhowr toddobaad oo kaliya si uu u noolaado. Waxay go'aansadeen inay cunaan dhammaan cuntadooda oo ay toddobaadka soo socda ka dhigaan midka ugu wanaagsan noloshooda. Paul waxa uu soo jeediyay Mario inuu god ka qodo qaybta hoose oo uu ka dhigo meel maqaasin ah. Kadib dhimashada Paul, weli wuu isticmaali karaa si uu u sameeyo jalaato oo uga iibiyo dadka keynta dhexdeeda. Waxaan aragnaa Anna iyo Astro ku dhex ciyaaraya keydka dhexdeeda. Anna ugu dambeyntii waxay jeclaatay walaalkeed. Subaxdii xigtay waxay u soo baxday si ay cunto u soo ururiso, laakiin markay wax u socotay xeebta iyadoo rajaynaysa in la kulanto Pietro. Sidii ay filaysay, waxay ka heshay xeebta, way wada dabaasheen oo maalintii inteedii kale ay sheekaysanayeen. Astro wuxuu qabanqaabinayay xaflad, waxa uu shiday dab, wuxuu ku shiday waxyaabo badan oo abuuray qiiq cufan. Carruurtii buluugga ahayd ee khatarta ahayd waxay ku sudaan waddo u dhow keynta. Waxay arkeen qiiqa soo kacaya oo waxay raaceen jidka si ay u eegaan halka uu ka imanayo. Astro waxa uu xidhan yahay labiska hoodii oo wuxuu ku wareegay guriga. Waxa uu yimid carruurtii buluugga iyaga oo soo galay guriga. Wax dhib ah uma geysan ee waxa ay qaateen dhammaan agabkii guriga yaallay. Hogaamiyihii tuugta ayaa u yeedhay Astro. Astro wuu yaabay sababtoo ah waxaa loo sheegay in isaga iyo Anna ay yihiin kuwa kaliya ee ku hadhay dunida, laakiin in guriga tuugta yimaadaan ayaa wax walba beddeshay. Hogaamiyihii waxa uu ogaaday in Astro wax akhriyi karo, taasoo macnaheedu yahay in uu kooxda muhiim u yahay. Kadib waxay soo baxeen dibadda. Hogaamiyuhu wuxuu wacay Astro isagoo ka codsaday inuu soo biiro, wuuna raacay su'aal la'aan. Si kastaba ha ahaatee, markii ay ka codsadeen inuu ka gudbo fiilooyinka xayndaabka ah, wuu diiday isagoo ka baqaya xayawaanka. Si uu uga gudbo xayndaabka, wuxuu fuulay geedka. Markii kuwa kale ka codsadeen in uu soo dego, wuxuu ku dul gurguuranayay la'aanta. Wuxuu ku dul dhacay dhinaca kale ee siliga. Markii hore wuxuu u maleynayay inay eryinayaan wuxuush, laakiin markii meelkii soo noqday waxa uu caddaatay in been loo sheegay noloshiisii oo dhan. Kadib markii uu ogaaday xaqiiqada, wuxuu raacay kooxdii si shaki la'aan ah. Dhowr saacadood kadib, Anna waxay ku soo laabatay gurigii. Way naxday markay aragtay walaalkeed ka maqan guriga. Rinjiga buluugga ee gidaalka la mariyay ayaa caddayn u ah inay soo weerareen carruurtii buluugga ahayd. Sidaas oo ay tahay, waxay isaga ka raadinaysaa keynta dhexdeeda, iyada oo miyir daboolan daal darteed. Kadib waxay ku nasatay keynta dhexdeeda, xoogaana siinaa kadib waxay xiratay boorsadii oo ay u kacday raadinta walaalkeed. Marka hore waxay la kulantay Pietro oo weydiisay halka ay ka heli karto carruurta buluugga, maadaama ku noolaan jiray agtooda. Wuxuu ogyahay inay joogaan meel ka baxsan keynta. Kahor inta aysan kala tegin, waxa uu sheegtay inuu sabab u yahay waayitaanka walaalkeed isagu. Kadib waxay aaday dukaanka mataana isagoo sii qaadato xoogaa cunto. Mario uu ogolaaday, wuxuuna weydiiyay inay caddeyso inayna qabin cudurka. Waxay caddaysay inayna qabin cudurka iyadoo kor u qaadaysa garankeeda gashaneed. Wuxuu fasaxay inay soo gasho. Waxa kale oo uu sheegay inuu qabtay qaar ka mid ah carruurta buluugga ee ku jiraan qolka dambe. Anna iyadoo rabta inay ka soo ogto walaalkeed, way rumaysatay wayna raacday. Si kastaba ha ahaatee, Mario uu khiyaanay. Waxa uu ku riixay qolka. Filimku wuxuu dhamaanayaa iyadoo Anna ay ku dhibaatoonayso inay ka soo kacdo qolka dhexdiisa. Subscribe channelka si aad u heshid muuqaalo badan oo xiiso geliya. Naguna xidhnow.